السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا Soomaaliyeed ee daafaha dunida naga daawanaya dhamaantiinba waxaan idinku soo dhaweynayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu salaan aad iyo aad u qiimo badan waa barnaamij gaar ah oo aanu maanta wada sugaynay taa oo looga hadlayo buug uu sheekheenu u doortay in hogaamiyaasha siyaasadda ee Soomaalida iyo qof kasta oo rabo inuu waddanka Soomaaliya hogaamiyo uu barto buuggaas oo ah kitaab cajiib ah aad u qiimo badan sharaf badan waxaan u day doonaa sharaxaadiisa iyo waxa uu ku doortaba fadiilada sheekh al-ustaad الدكتور sheekh xasan jaamici حفظه الله ورعاه سيد الكريم marka hore ku soo dhaweynaya جزاك الله خيرا walaalkay wariyayda waqaca waa mahadsan tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ajir iyo thawaab ha kaa siiyo kitaabkan oo kutubada diinta islaamka laga barto kutubada ugu waaweyn ka mid ah in idaacadaada si joogto ah arbaco kasto 10:00 saacadda Minnesota iyo saacadiina 9:00 saacadda Muqdisho kulay waxaan u maleynayaa subax inay u tahay oo ah 7:00 in laga wada dhageysto iyo caalamka Yurub intaas ajirkeeda iyo thawaabkeeda ilaahay subxaanahu wa tacaala ku barakeeyo inta dhageysan doonto mustaqbalkii kuwa hadda dhageysanayo dhammaan waxaan ugu bishaareeynayaa cod aan qaaday inuu ku soo baxay dad badan ayaan cod Facebook-ga ayaan geliyay 3 kitaab midee habboon inaan bilaabo oo aan ka baran karno sida loo maamulo dowladnimo kitaab wuxuu ahaa kitaab ka hadlayo Umar ibn Khattab aan wada naqaano amiir mu'miniin oo caadilka ahaa kitaabna wuxuu ahaa kitaab uu maaragtay laga qoray Umar ibn Abdulaziz oo isagana ahaa ninkii cadaaladiisa meel walba ay gaartay kitaabka saddexaad waxa waaye kitaab guud ahaanba ka hadlayo xuquuqda ay leeyihiin madaxda iyo waajibaadka saaran iyo xuquuqda shacabka ay leeyihiin iyo waajibaadka saaran marka waxaa loo fooday 90% waxay u foodeen kitaabkan caawa aan halkan ka bilaabi doono idaacadaada sharaftada insha Allah ما شاء الله جزاك الله خير واحسن الله اليك وغفر ذنبك فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور شيخ حسن جامعي إمامك مسجدك معركتي الدعوة ربي سبحانه وتعالى سيد الكريم هبو كراميو ودكتور وقرن هنتي كالن وين أو بوك وين وجرة برشلة صوماليات مروا البنا لدى بتاعن ونادى خيرك ربي سبحانه وتعالى حكوا سيد جسده سيد الكريم آمين بوجن أما كتاب كان محو كهرليا يا قري بحيث حسابته لو قري فليتفضل مشكورا ومأجورا halka horta say dadku arkaan kitaabkan waxaa la yiraahdaa as-siyaasa ash-sharciyya waa siyaasadda islaamka oo ku salaysan ama siyaasadda oo ku salaysan sharciyada islaamka iyadoo kooban hadalka mugis intaas waaye markaas waxa ku taalo fi islaax ar-raa'i war-ra'iyya oo ah hagaajinta ar-raa'i waa madaxdi macnaa in la islaaxiyo iyo waraciye waxa waaye shacabka ee madaxda ay u ahaayeen marka kitaabka wuxuu ku warwareegsanayaa oo bilow ilaa dhamaadku ka hadli doonaa xuquuqda madaxda ay leeyihiin iyo waajibaadka saaran madax ahaan iyo xuquuqda shacabka ay leeyihiin iyo waajibaadka saaran waxaan aaminsanahay kitaabkan markii aan bilaabayay waxaan ula jeedaa markii aan soo jeedinayna waa sheegay hadiyad ugu fiicneed oo aan u hadiyeyn karo madaxweyne farmaajo hadda isagaa madaxweyne noo ah iyo prime minister khayre isagaa prime minister noo ah iyo madaxda Soomaaliya oo dhan hadiyadii ugu weyneed aan siin karno ka jaaliyad ahaan qaasatan jaaliyadda Mareykanka oo ka mid ahay waa hadiyadan marka hadday bartaan ay ku dhaqmaan hadday hore u yaqaaniina waa xusuusin haddaysan weli aqoonina caawa wixii ka dambeeyay ilaa aan ka dhamayna inay bartaan hadday bartaan ay ku dhaqmaan waxaa dhici doonto sida madaxdii meesha ku jirta aan maqli doono in ari iyo waraabe wada daaqi doonaan waa xaqiiqo dhacday waaye oo sheeko aan ahayn kitaabkan ku arki doonaa waa ognahay waraabo markuu ari arko inuu cunayo laakiin waxaa dhacday inay meel ay wada joogeen oo waraabihii ammaan laga helay arigana uu ammaan helay marka macnaheedu waxaa loo jeedaa laba kitaabkan haddii lagu dhaqmo laba cadow isku ah ayaa meel inay ku wada noolaadaan amni wada helaan horumarna ay wada samayn karaan ما شاء الله جزاك الله خير waxaana qoray su'aashaada oo qaybta labaad waxaa qoray sheekh caalim ah oo halkan sheekhul islaam taqiyuddin axmed ibn taymiya ayaa la yiraahdaa sheekhan iyadoo kooban
waxaa laga codsaday madaxdii waagaas joogtay oo laisku khilaafa qofku ahaa marka ma sii dhexgelayno muhimna ma ahan madaxdaasa waxay ka codsatay inuu dejiyo maadaama caalim weyn uu ahaa kitaab oo xuquuqda madaxdana ay ku qoran tahay iyo waajibaadka saaran iyo shacabka xuquuqdooda iyo waajibaadka saaran iyadoo laga soo qaadanayo kitaabkii sunnada ما شاء الله جزاك الله خير سيدي الكريم واحسن الله اليك وغفر الله ذنبك صاحب الفضيله هردع كوبن يو انفع يا كتاب كان هردع كوبن كتاب كان وحو انفع يا cid kasta walaalkay oo rabaan inay madax noqdaan mushkilaadka maanta haysta saa ula socota walaalkiisa ula socoto waxa waaye Soomaalidu babankooda waxay rabaan madaxweynayaal inay noqdaan macnaa waa xaqiiqo oo qofna aan diidi karin kaan rabeen madaxweyne inuu noqdo wuxuu rabaa inuu madax noqdo marka qofka inuu jeclaado inuu madax noqdo wax diiday ma lahan laakiin ma taqaanaa ma baratay ka muslim ahaan haddaad madax noqoto waajibka ku saaran in wax laga rabo raali ah tusaalaan soo qaadanayaa halkan waxaa ku qoran daytaab magacan maadaama adig dadka maraykan ku noolaa tahay waa garanaysaa waa magac ajnabi waaye laakiin ninkan nin maraykan oo mong u dhashay waa laakiin maraykan ah waa guddoomiyaha degmada koowaad gudoomiyaha degmada koowaad ee São Paulo degmada aniga aan ku noolahay tusaale kaliya aan ku siinaya oo kooban waa nin gaal ah muslim ma ahan gudoomiye wuxuu noo yahay anaga guriga aan ku noolahay guriga hadda aan ku jiro oo shakhsiyan aniga aan leeyahay ayaa guri nagu dhaganaa oo xirnaa muddo dheer ayaa waxaa qasab noqotay degmadii waxaan la jeedaa magaaladii weyneed ee caasimadda ahayd guriga in la gado marka si hoos ah warar hoos ay soo gaareen oo ah dad gooni ah in la rabo in laga gado iyo qiimo jaban in la rabo in loogu gado marka aniga waxaan xaq u lahaa daris ahaan inaan ogaado maadaama sharcigana aan bartay lama soo gaarsiinin marka waxaan amar siiyey gudoomiyaha degmada waxaa laga yaabaa dadka qaarkood khiyaali inay noqoto sababtoo ah cadaalad kuma dhaqanno saasay khiyaali u tahay lidaalika sheekhan waa sheekha dhahay mahmaah oo ah dowlatul kaafir oo laakiin ah caadila dowlad oo kaafir ah laakiin cadaalad raadinayso way jiraysaa uu dhahay dowlad dhaalimad ah dowlad muslimad ah laakiin dhaalimiin ah way burburaysaa marka waa fahmi kartaa waddankan waddan gaalo waaye laakiin cadaalad haddaa u dagaasho inkastoo cadaalad darana ay jirto laakiin waddamada muslimiinta inay ka fiican tahay maanta shaki kuma jiro sababtoo diinna kuma dhaqmaan tii gaaladana ma aysan qaadan marka ninkan marka waxaan dhahay kow waxaan rabaa inaan kula kulmo fiiri inta wax amar aan bixiyey kow waxaan rabaa inaan kula kulmo waa guddoomiyihii laba waxaan rabaa inaan kugula kulmo xaafadeeda ma aha xafiiskiisa saddex waxaan rabaa naag la yidhahdo keri goobjoog inay ka ahaato afar waxaan rabaa inuu goobjoog ka ahaado ninka guriga lahaa oo laga gadanayo markaasaa isla markii wuxuu la tashtay looyarkiisii citiga looyar uu leeyahay looyarku wuxuu yidhi maadaama ninkaas guddoomiyaha u tahay waxaad ku qasban tahay inta uu ku dhahay oo dhan laakiin wixii ku saabsan xuquuqda ninka guriga leh kama hadli kartid ninka keliya ka hadli karo wuu yimid waqtigan ugu tala galan 3 barka shalay ahayd wuu yimid haweentii way joogtay ninka guriga lahaa waa joogay oo nin cadaan ahaa markii qolka aan soo wada xirannay hadalku ku bilaado wuxuu ahaa hadalkan intaasoo inta aan kusoo gabagabeynayo marka waxaan rabaa idaa waqaca hadalkan waa hadal haddaa rabto waxaa dhihi kartaa dahabaa lagu qori karaa wuxuu dhahay waxaan hor fadhiyaa 3 qof oo boosaskayga ah boos soo ma taqaan luqadda English maxaa boos micnaheeda idaa waqac madax ha 3 qof oo booska I'm here u dhahay to serve them waxaan halkan u joogaa inaan u khidmeeyo marka waxaad ii amartaan aan sameynaa gudoomiye degmo kawna suu hadlayo markaas calaa kulli xaal waxaan rabnaa inuu sameeyey howlihii faahfaahinta ma gelaayo laakiin waxaan su'aalo u soo qaatay oo keliya nin gaal ah oo nidaam degsan raacayo dadkana xuquuqdooda siinayo una adeegayo ruuxii markaasa wuxuu kusoo gabagabeeyey idinkaa isoo doortay ammaanada ii dhiibay marka waxaan rabaa ammaanadii sidii loogu talagalay inaan u oofiyo laakiin inaan i kaalmaysaan rabaa u dhahay intaasaan kaga baxaya kitaabkan marka iyadoo kooban wuxuu ka hadlayaa 2 qayb oo waaweyn kitaabku dhan qaybna waxa waaye ammaanada loo dhiibay nimanka madaxda ah noocyadeeda kala duwan iyo qaabkay u fulin lahaayeen oo ilaahay u karaal yahay waddadii nebigana ay ku taagan yihiin waa qayb waay macnaa qaybta madaxda dhihi kartaa qaybna waxaa la yidhahdaa alraciya
shacabkii marka shacabka waxaa laga mid dhigay jeyshkii macnaa ciidamada shacabka la raaciyay halkan waa arki doontaan marka shacabkii iyo ciidamadii xuquuqda ay leeyihiin oo ah wax ala wixii xaq ay leeyihiin oo dhan in loo oofiyo iyo waajibaadka saaran oo ah in taaca buuxda ay ateecaan madaxda inta madaxda ay toosan yihiin oo aysan qaloocan waa intaas waa kitaabkiisa uga qooban ما شاء الله جزاك الله خير واحسن الله اليك وغفر الله ذنبك صاحب الفضيله فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور قرين كان الامام حسن جامعي ربي سبحانه وتعالى حكو حفظه قاب عينك ayaad u soo bandhigaysaa buuggan oo looga faa'iideysan karo falyatafadal mashkuuran wamaajuuran kitaabka waxaan soo bandhigayaa haddii dadka aan u soo kookoobo kitaabkan waxaan usoo bandhigayaa waa saddex nooca wax loo akriyaa maadaama macalin aan ahay ama maadaama 40 iyo waxaan u maleynahay 4 sano macalin ahaa waabad igala yartahay 44 dadkaan waxay leeyihiin isagoo dhashay muu macalin hore ka noqday macalinimadan ku dhashay marka weligay macalin ahaa ilaa haddana macalin aan ahay iskuulo jaamacado macaahid galab kastana macalinaan maaxad ka ah ayaan wax ka dhigaa marka iyadoo kooban jaamacadna wax waa ka dhigaa marka kitaabkan saddex qaabka oo wax dhigista saddex aan ku soo ururinaya qaabna waxa waaye qaab academic ah qaab academic waxa waaye chapterkii oo kooban in la sharxo oo la faahfaahiyo macalinka professorka jaamacadda saasuu sameynaya marka ardada waxaa la rabaa intaysan imaan inay hore usoo akhriyaan markay yimaadaan wixii su'aala inay weydiiyaan ama macalinka inuu su'aalo weydiiyo marka qaabkaas waa qaab academic ah waa chapter loo soo koobaya qaybta labaad waxa waaye qaab sardi macnaa qaab loo akhrinayo qaabta kutubta oo kale oo ah line in loo akhriyo oo marka la leeyahay oo kale in allaha ya'murukum ilaahay wuxuu amray an tu'addu al-amaanaati amaanada in la guto ilaa ahliha dadkii xaqa u lahaa loo guto taas in loo akhriyo waa qaab noocaas waaye qaab kaloo saddexaad waxa waaye in kitaabka qaab su'aalo ah chapterkii oo su'aalo in laga soo saaro inta ugu muhiimsan oo wariye adiga oo kale ama maaragtay ruuxii la shaqaynaya macalinka oo kale ag fariista oo qaab su'aalaha loo weydiiyo iyo jawaabo halkaas markaasi nidaam noocaas oo qurux badan oo dood ay u dhacdo kadib markaasi haddii wariye maaragtay waaqaca uu furo oo kale dadka markaas in loo furo su'aalihii ay weydiiyaan markaasna ay anna aan ka jawaabo qaabkaasna qaabka saddexaad waaye marka anaga waxaan doortay qaabkaas saddexaad oo ah in chapter kasta markaan akhrinayo 10 su'aalood oo muhiim ah inaan ka soo saaro oo markaasi aan u soo gudbiyo wariye idaa waqacna inuu ku darsado su'aalo kasto maadaama wariye oo khabiir aad tahay su'aalo kasto aad leedahay munaasabay u tahay halkan marka waxaan u hadlaynaa si objective ah cid ulama jeedno dowlad gooni ulama jeedno dowlad goboleed ulama jeedno waxaa laga yaabaa waxyaala qaarkood dadku way dhibi doonaan waxyaala qaarkoodna qofkii cadaalad samaynaya wuu ku farxi doonaa marka kitaabka anaga aan akhrinaynaa waana sharxaynaa wax alla wixii kitaabka ku jiro o dhanna ma qarinayno waa qufaynaa si xaqiiqda madaxnimada qofka dadna waa ka carari doonaan markii kitaabka la dhammeeyo waxay ku dhaaran doonaan madax iyo meeshay ka dhowdaa inaysan u dhowaan dadna waxaa laga yaabaa hadday aaminsan yihiin in nebi yuusuf oo kale ay wax hagaajinayaan ayna isku kalsoon yihiin inay dhahaan meeshan waa meesheenay marka dadka jooga inaan ka saarno waaye dadna labadaas ay u dhexayn doonaan kitaabka marka qaabkaasna u akrin doonaa insha allah aad baad u mahadsan tahay guud ahaan siyaasaddu qof kasta ma u furan tahay mise waxaa jira dad gaara oo loogu talagalay inay siyaasadda habeeyaan ama ay ka qayb qaataan ama ay ummadda u adeegaan horta siyaasadda waa su'aal aad u fiican siyaasadda kelmadda siyaasa macnaheed waxaa waaye in la idaareeyo nolosha qofka insaanka siyaasadda iyadoo kooban waa intaas waaye wax walbo ab soomaaliyeenaya waxaan xasuustaa qoladan wariyaasha markii ay wareysan jireen idaacadahan khaasatan VOA-da oo kale ama BBC-da markay kelmad af carabi iga soo baxdo ama kelmad English iga soo baxdo waxay isku dayi jireen inay dib igu celiyaan ay dhahaan kelmadda Soomaaliyeed wayna ku saxsiin waa idaacad Soomaali ah markaas waxaan isku dayayaa wax kasta inaan Soomaali yahay marka siyaasad macnaheedu waxa waaye maareynta nolosha qofka insaanka ah si loo ilaaliyo
shan diinta islaamka siyaasad ahaan diinta islaamka laga fiiriyo waa ka horumarsan tahay siyaasadda maraykanka xitaa waa haddii la dhaqan geliyo iyadoo la ilaalinaya shan oo ah qofka diintiisa caqligiisa hantidiisa hantida marka waxaa soo gelayso hantida muuqata iyo taan muuqan waxaa loola jeedaa maskaxda iyo caqliga macnaa qofka wax kusoo fikiro waa hanti waa marka waxaan dhahay diintiisa caqligiisa hantidiisa iyo sharaftiisa iyo waxaa noo soo haray diintiisa qofka caqligiisa hantidiisa iyo cirdigiisa iyo naftiisa shantaas marka ilaalintooda maarayntooda qaabka loo ilaalinayo iyo horumarintooda intaba dowladda ayaa mas-uulka ah marka dowlad qaxdada waxa waaye intaas iyadoo kooban dowlad marka siyaasad qof kasta ma geli karaa qof kasta oo intaas qaban karaa geli karo marka reer gooni ah uma xayirna inkastoo la dhaho siyaasadda islaamka marka laga hadlayo maaha siyaasadaha reer galbeedka waa in ay hogaamiyaan dadka ugu khayrka badan tusaalan waxaan kugu soo qaadayaa marka ambiyada laga soo bilaabo waxaa la yidhi xadiis waxaa jiro nebiga calaih salaam xadiiskaas wuxuu leeyahay banu israa'iil marka laga hadlayo kale tasuusuhum alambiyaa waxaa siyaasadooda hogaaminaya ambiyada marka kow sooma haddana ambiyada waxaa dhaxlay culummada manaa culamaa u diinka hadda culammadan laga celcelinayo oo laga ilaalinayo cidday doonta ahaato iyaga waxay dhaxleen ambiyadii xadiisku wuxuu leeyahay alculamaa waratu lambiyaa culummadii waxay dhaxleen ambiyadii marka ambiyadii oo siyaasadda hogaaminaysay hadday meesha ka baxaan ay wada dhintaan oo nebi maxamed ugu dambeeyey alayhi salaam culummadii aa meesha soo gelaysa marka culummadii marka waxay kaga habboon yihiin ay kaga owleysan yihiin siyaasadda inay hogaamiyaan haddana su-aalaa imaanaysa ah culummo noocee waaya culummadaas su-aashasaa imaanaysa culummo waa inay ahaadaan culummo buuxinayo shuruudaha umarada laga rabo siyaasadda inay hogaaminayso marka waxaa waaye inuu ahaado soo sheekh ah oo diintii bartay culumta asaasiga ah oo qofka hoggaan qabanaya laga rabo inuu bartaa laga rabaa marka lidaalika markaa fiiriso umuradii hore madaxdii hore qur-aanka yaqaaneen sunnada yaqaaneen axkaamta yaqaaneen qaabka wax loo maareeyo dowladnimo yaqaaneen intaasoo dhan marka waxaa laga hadlaya culummo dhammaystiranaa laga hadlaya halkan sheekh oo tafsiirka qur'aanka keliya yaqaano oo intaas ku ekaada ma ah wax laga hadlayo ama sheekh xadiis keliya akhrinayo intaas laguma ekaanayo waa la waasicinayo waa la balaarinaya waxaa loola jeedaa sheekh caalim ah oo dhammaystiran oo noocyada cilmigana uu wax ka soo qaatay qasab ma aha inuu ku wada takhasusay oo hogaaminta dadka iyo dalka iyo ilaalinta diinta u taagnaan karo awooddeedana leh intaas waa marka siyaasadda cid kasta way u furan tahay laakiin waa lagu kala habboon yahay wadaadadu ma geli karaan maxaase daliil u ah haddii ay geli karaan wadaadadu waa geli karaan waxaa daliil u ah kow daliilkii hadda aan soo sheegay oo ah banu israa'iil maaragtay tasuusuhum alambiyaa reer bani israa'iil ambiyada hogaamin jirtay ambiyadana waxaa dhaxlay culammadii taas horta waa daliil dadkii umaradii hore oo taariikhda fiican ka tegey culumay ahaayeen sayidna abubakar culumuu ahaa aclamu saxaaba saasaa la dhihi jiray saxaabada waxaa ugu cilmi badnaa sayidna abubakar amiiruu noqday wuxuu noqday khaliifatu lmuslimiin dana markaas khulafaa raashidiintii afartii oo isku xigeen afartoodaba culummo waaweynay ahaayeen oo mid walba cilmigiisa sayidna cali waxaa lagu tilmaamay madiinatulcilmi inuu ahaa magaalo dhan oo wada cilmi ah oo fatwo bixin jiray oo asxaabta ragga waaweyn oo cumar uu ka mid yahay xitaa fatwo ay ka qaadan jireen marka culumay ahaayeen marka taas ayaa daliil u ah oo ambiyadaa soo noqday madax nebiga calaih salaam madaxweynuu ahaa nebi keliya ma ahayn kitaabka kutubada maanta adduunka aad loo qiimeeyo taariikhda insaanka lagaga hadlo oo nin la yidhahdo michael hart uu qoray ninkaasi isagoo muslim haddii inuu soo islaam ma aqaan number one wuxuu ka dhigay wuxuu ururinayey qaadatulcaalam dadka adduunka hogaamiyey iyo yaa number one noqon karo iyo sababta ugu dhigay marka wuxuu nebi maxamed calaih salaam ayaa wuxuu ka dhigay number one muslimna ma ahayn la soco kitaabkiisa 100 uu soo xushay marka waxaa la jeedaa ambiyada waxaa dhaxlaya culummadana waa inay ahaadaan culummadii saxda ahaa ee fahamsanaa 3 shay diintana si fiican u fahamsanaa 1 waaqaca adduunka si fiican u fahamsan 2
iyo waaqaca dadka ay maamulayaan inay si fiican u fahamsan yihiin saddexdaasa aasaas ah marka la raadinayo marka culummada way kaga habooyin dadka kale haddii la helo culummo shuruudaas buuxin kara maasha allah jazaaka allahu khayr ma jiran ayado qur'aan ah oo dowladnimada iyo siyaasadda tilmaamaya kitaabkan haddaa aragto waxaa uu ku salaysan yahay kitaabkan uu macnaha axaadiis iyo aayado fara badan waan soo qaadan doonaa laakiin kitaabkan markaa aragto sheekha wuxuu xooga saarayaa 2 aayadood oo fi suurati nisaa oo dadka aan raba caawa inay xifdiyaan waa aayadda 58 iyo aayadda 59 suuratu nisaa idaa waqa ahaan markaan kitaabkan maadaama 4 kasta aan akhrinayno waxaan rabaa oo ku weydiinaya su-aashaas oo suuradday aan ku weydiinayaa labadaas aayadood aayado kale way jiraan sida aayadda innaa caradna alamaanata cala asamaawaati waalard والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنسان كان قاضي أمانة دولة نمو إنسان كان قاضي لكن يا ماركتي أو كعب صدي أو كفو قاضي مخلوقات كواوين مرك عاد سكر ويكادس دولة نمو وحاد دولة نمو لكن علومة أيضا طبعا كهذا لكن لوضع أيضا وحال يروح أساس ويهين دولة نمو آيات كواد وآيات كونتن إسديت سورة النساء وآيات إلهي سبحانه وتعالى ودهايو إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلهي أمر أيكم بحيي أمانوينك وحا مسؤولياتك أمانوينك خوص إيمانا يؤردن ددكي لها إن لو قتو مركز أحضنا وحكا هذا شيء خيبت عدالة وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل مركي تمابو إن حقوق ده ددك لإلاليو سي عدالة إن لو إلاليه إن الله كربضين أنا هذا شرر أي ودن قبل هذا كسعودو ama maaragtay doorashooyin ayaa ka socda ama qaar way dhaceen ama qaar waa imaan doonaan cadaalad in laga shaqeeyo markaasi aayadda kale aan u gudubno si degdega iyadoo kooban waa aayadda ku xigta oo ah 59 aayaddaas waxay leedahay yaa ayuha aladiina aamanuu atiicuu llaha wa atiicuu rasuul wa uli lamri minkum intaas haddaan ka soo qaadano qaybta hore oo keliya mu'miniin ayaa lala hadlay ilaahay amruu bixiy wuxuu yidhi atiicuu llaha ilaahay ateeca waxaa culammada ay yidhaahdeen waa kitaabkiisa waxa ku jira qaata macnaa sharci ahaan u qaata waa kitaabka qur'aan dan wa atiicu rasuul nabiga calayhi salaatu wasalaam noloshiisa oo dhan khaasatan sunnada sharci ahaan u qaata markaas waxaa lagu xijiyey wa uli lamri minkum uli lamri laba tafsiir ay leedahay marka tafsiirka koowaad waa madaxdii macnaa waxaa loo jeedaa 1 iyo 2 u kala bixi ayaa loola jeedaa 1 waa culummadii waxaa la yidhi alculamaa yucallimuuna annaasa addiin culumadii dadku waxay barayaan diintii marka shaqo weynaana sugaysa anaga culamo ahaan dadka inaan diintii aan barno walumuraa madaxdii marka culamo ha ahaadan ama dad kale hana odano madaxdii wax maamulaysana yunafiduuna maa cullimu nnaas dadku wixii la baray ay fulinayaan marka matalan dadku waxaa la baray in dadka la dhaco waa xaraam soo lama barin hantiyada qofka in la qaato idan la'aan waa sariqa waa xatooyo haddii la baro yaa fulinaya marka dowladdii yaa fulinaysa marka dowladda maxay leedahay awood wax fulin booliiskii maxaakiimtii iyo wixii oo dhan dowladda marka waxay howlgelinaysaa wixii shareeco ahaa oo culummada iyo dadka ay bareen marka aayaddan waxay ka hadlaysaa ay dhaheen culummadu way kala qaybeen waxay dhaheen aayadda koowaad waxay ka hadlaysaa haddii oo diagram ay culummada sameeyaan waxay dhaheen aayadda koowaad waxay ka hadlaysaa alwilaayaat waalamwaad dowladnimadii waxay ka hadlaysaa maaragtay amaanadii marka amaanada waa wixii xuquuq ahaa iyo sidii loo gudan lahaa iyo amwaashii iyo waxyaala fara badanaa soo hosgelaya tan qaybta labaadna waxay soo hosgelaysaa marka dowladnimadii waa dowladdii iyo waxay ka hadlaysaa amaanadii iyo gudashadeedii wixii o dhan qaybta labaad waxay ka hadlaysaa alraciya dhahan meeshaan ah يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ضرع الله أمرها يا الله أمرها يا مؤمنين يا الله مركين واحد أدعان يا مقلايا وحو إلهي أمري أي قاضنايا يا مقلايا وحي النبي هو أمري أي قاضنايا يا مقلايا ما ضحضوا لن مركين ما ضحضوا حاشرد لغاية إن إلهي أي أدعان كدم رسولك أي أدعان ما ضحضوا مركين هذي كتابك يسنود أي راعان ولا راعيا هذي كتابك يسنود هذي خلافان ما ضحضوا الخلافة يعني انت سوى يذكر ما شاء الله جزاك الله خير سيد الكريم وأحسن الله إليك وغفر الله ذنبك أمانة إيا شرع إسلامك آيات إيا حديث أمانة إذا قابا آياتنا آيات دي حد واي معركتي أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وأمر واي
علماء وحن أمر هذاك أركت القرآن كفعل أمر هذاك أركته وحفائدين يا أرنكاس إنه واجب يعني أنا دولة وحواجب كأه إن ذاتك حقوق ذا أسيسه مركب واجب واحد هدي سين ويسو دولة معصية كجرتها دنبي كجرتها على إلهي أيام الصعود ساس وعميان هذا مركب عيد زكاة لبا رسولك عليه الصلاة والسلام أحاديث فربنا كان هذا أمانة لكن هل حديث أنقصوا كوبا يعني النبي وحوير عليه السلام حديث أمانة حديث كمد وحوير إذا ضيع الأمانة حداد أركان أمانة دي أو ضيعانتين حلول جدا قف أن صح أهنا مضح لقديك قف أن صح أهن أيا حلبان نقضي قف أن صح أهن أيا وزير نقضي مركب ماشي وحكو ضيع مايو أمانة دي فانتظري صعور يا رسولك مركب ساعدي قيامها سودواتي هدا أركته dad aan ehel u ahayn inay madax noqdaan qiyaamiha soo dhawaaday marka halkaas waxa laga fahmayaa ahamiyada amaanada ay leedahay axaadiis kale oo fara badan ayaa jiro nin nabi Muhammad alayhi salaam uu yiri meeshaas ii dhiib rasuulku uu yiri maya laguma dhiibayo sababtoo ah waxa tahay qof daciif ah ana daciif xaloo jeeda qof aan karti iyo aan u suubanayn inuu madax noqdo dadka qaarkooda su'aasha daaytu waa ku noqonaya dadka qaarkooda waxa laga yaabaa in aysan u suubanayn laakiin caam ahaan uu jawaab markaan ku dhahay cid kasta madax noqon karto laakiin dadka qaarkooda in aan istaahilin in aan loo dhiibin madaxnimo way imaan kartaa sida nabiga calaysalaam salaam uu diiday asxaabta qaarkood inay madax noqdaan oo kale ما شاء الله جزاك الله خير سيدي واحسن الله اليك وغفر الله ذنبك goorma ayaa dawladda ama madaxda dawladda la adeeci karaa boqolkiiba boqol madaxda dawladda waxa la adeeci karaa boqolkiiba boqol ayadii oo konton iyo sagaalaad ee suuratu nisaa marka ay fuliyaan waxaana tusaale u ah ayadaas qissa ayaa jirto nin saxaabi ah ka sheekeeyey oo ah nabiga calayhi wasalaam ayaa nin madax ka dhigay markuu madax ka dhigay dadkii madaxdu ah wuxuu dhahay ninkaana madax idin ah wax walba uu idin faro boqolkiiba boqol adeeca qisaasan soo qaadanayo nabiga calayhi salaam waqtigiisa ay dhacday marka dadkii marka waa adeecayeen way dhageysanayeen amar kastay qaadanayaan ugu dambeyntii waxaa dhacday arrin yaab badanaa dhacday maalina wuxuu yidhi waxaan idin amraya inaad qoryo soo wada gurtaan way baxeen dad badanay ahaayeen qoryo badan ay soo wada gureen wuxuu dhahay waxaan idin siinayaa amar kale oo labaad oo ah qoryihii oo dhan horiya qoryihiyaa la horiyey marka meesha waxay u ekaatay meel weyn xaafad oo kale oo wada dab ah dab ka baxayso markaas ayuu waxaa mar idin siinayaa intiina sa wada dhintihiin meeshaas dabkaas isku wada daadaya ninaa marka istaagay marka dadku ka hor istaagay marka saasuu u istaagay wuxuu dhahay yaan la dhegaysan waxay dhahan hadda rasuulkaana amray wuxuu idin amroo dhan isagaa madax idin ah sameeya wuxuu dhahay rasuulkana ma amrin waxna dhibayo nafteena dhibayo inaan ka ogolaano marka meeshii marka doodaa dhacday waxaa la nabiga loo wada tagay calayhi salaatu wasalaam nabigaa loo tagay sheekadii loo sheegay nabigu wuxuu yidhi wax alla wixii uu idin amray aad adeecdeen oo dhan waa ku saxsanaadeen laakiin tii dabka ahaa ninkaas dhalinyarada wuu saxsanaa haddii tii dabka ahaa haddaad ku adeeci lahaydeen saad u gashaan weligiin kama soo baxdeen macnaa kuwa arag lahaydeen fiiri khatarta ay leedahay markii madaxda wax khaldan ay samaynayaan marka lagu raaco marka halkan waa halka culummada ay ka qaateen qofkii madaxda wax khaldan oo ilaahay aan raali ka ahayn nabiga calayhi wadadiisana aan ku khilaafsan sala allahu calayhi wasalam qofkii ku raaca madaxda caasi waaye si ninkaas madaxdu caasi u yahay kaas madaxda suu ahlu naar uu u noqonaya isagan ahlu naar uu u noqonaya xadiiska laga qaatay marka madaxda waa la adeecaya boqolkiiba boqol intay adeecayaan boqolkiiba boqol ilaah iyo rasuulkiisa hadday khilaafaan oo wax ka soo horjeedo ilaah iyo rasuulkiisa ay la yimaadaan lama adeecayo boqolkiiba gormay waajib tahay in la caasiyo madaxda waxay waajib tahay in la caasiyo markii ilaahay subxaanahu wa tacaala boqolkiiba boqol ay caasiyaan su-aashan waa su-aal culus waana caawan waa horudhac wax walba faahfaahinteeda chapter kasta markaan su-aalo kasoo saaraan dhex gelaynaa madaxda waa la adeecayaa intii maaragtay ilaahay adeecayaan laakiin mar alla markii madaxda ay caasiyaan hal tusaalaan soo qaadanaynaa maalan oo kale haddii ay dhahaan hadda waxaa jirto soomaalida waxaa la yidhahdaa cuquba ku socota hadda waayo dowladdii hore iyadoo kooban qodob ayay soo saareen waxaan umaleynaa qodobkaasuna ah 158 xeerka qoyska daan qaldaneen
agaas waxaan ahaa arday jaamacadda sharciga ee Soomaaliya dhigan jiray raali ahaada markaasi waxaan ahaa arday oo 13 jir ah wax xasuustaa markii xeerka qoyska la soo saaray oo weli waa yaraa dugsiga dhexan aan dhiganayay laakiin waxaan ahaa qof wax garanaya wax fahmaya laakiin markii jaamacaddii oo Soomaaliya aan galay 81 ayaa waxaa xeerkii qoyskana la barayay iyo sharciga islaamka labadooda markay meelaha iska hor imaanaya waxaa ka mid ahaa xeerka qoyska waxaa ku jira qodob haddaanan qaldanayn 158 oo dhahayay lirajuli mithl xaddi al-unfa saas u qornaa qodobka af carabi af Soomaali oo ah ninka dhaxasha wuxuu la mid yahay haweenka shareecadan markaan baranaynay waa isla jaamacaddii waa shareecada noo dhigaysa jaamacadda shareecadan waxaa ku horneed aayatu nisaa suurad hadda aan akhrinaynay aayadeeda 11 lirajul mithl xad al-unfiyayn oo ah ninka wuxuu xaq u leeyahay dhaxal markay timaado laba haween waxay qaadan lahaayeen marka isdiidaan soo ma jeed marka meeshii shacabka Soomaaliya oo dhan ay maadaama macsi kaliya ma aha ilaahay kitaabkiisa uu ka hor yimid madaxweynihii iyo dowladdii oo dhan dadka qaabka waxay leeyihiin madaxweynaha mas'uul ka ahaa maya quraanka wuxuu ku leeyahay inna fircawn wa haamaana wa junuudahuma kaanuu khaati'iin waa aayad qur'aan madaxweynihii fircawn ahaa wa haamaana iyo prime ministerkiisii wa junuudahuma iyo cudimadooda dhan kaanuu khaati'iin kaanuu mujrimiin dhammaantood dambiilayaal ay ahaayeen marka aadan ugu xumahay dadka markay kala socsoocayaan waa madaxweynihii waa dowladdii prime ministerkii dowladda oo dhan intii joogtay wasiire ahaa iyo macal ciidamadii dhammaantood dambiilayaal marka shacabka maxaa la rabaa markaasoo kale inay ku caasiyaan kuma caasin 10 culummo ka mid ah iyo kuwii la xirxiray ayaa ku caasiyey 10kii kolay la dileen ahlu janno waa insha Allah iyo intii la xirxiray oo dhib ka soo gaaray iyagana waxa waaye dhibkaasi ajir iyo thawaab ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ka siin doonaa marka si cad ah oo ninka madaxda ah uu ilaahay subxaanahu wa ta'aala aayadaha qur'aanka ah oo wax daliil ah uusan haysan tafsiirna uusan haysan uu ka soo horjeesto ama sunnada nabiga si cad u khilaafo markaasi in lagu caasiyo waa waajib ما شاء الله جزاك الله خير واحسن الله اليك وغفر الله ذنبك صاحب الفضيله madaxda Soomaalida ama Afrikaanka waxa ku badbadatay in dad qaraabada u ah xelalka sarsare ee dalka maaragtay ay ku safaan oo ay siiyaan maxay shariicada islaamku ka qabtaa in madaxweynuhu uu u magacaabo xil sare qof ay qaraabo yihiin falyatafadal mashkuuran wa maajuuran su'aashaas nabi maxamed alayhi wadiy alayhi wasalaam marka nabi maxamed alayhi wasalaam jawaabtiisu nagu filna ما شاء الله سمعنا وضعنا النبي عليه الصلاه والسلام مركب في هذا النبي عليه الصلاه حديث صحيح امام حاكم وحول حديث كان صحيح وحول دحي حديث كاس كليه وحول نقول في الانعاو من ولى رجلا على عسابه قفكي مدح كدغه نين قفكي مدح كدغه اما قف حتى هوين way soo galaysaa madax kaga dhig waa haweenka meel qaar kood way qaban karaan madax ka dhiga وهو يوجد في تلك العصابة isagoo ka heli kara dadkaasi man huwa arda lillahi minhu mid isaga ka khayr badan oo ka fiican faqad khana allaha wa rasulahu wa khana almu'minin saddex khiyaano sameeyay kow ilaahu khiyaameeyey laba rasuulku khiyaameeyey way rasuulku wixii uu ka tagay ma ahan saddex mu'miniinta uu madaxda u yahay uu khiyaameeyey waa saddex dambi uu galay qofkii marka taas marka waxay ka hadlaysaa qofkii qof magacaaba qofku meel uu magacaabina ay jiraan intaasoo qof ka fiican ka amaano badan ka khayr badan ka diin fiican ka cilmi badan ka khibrad fiican waxaasoo dhan oo haye marka sayyidina cumar xadiiskan u sharxay wuxuu dhahay man wallaa min amri lmuslimiin qofkii maamulka islaamka qof madax ka dhiga shay-an intay doonta ha ahaato in yar xitaa ha ahaato فولى رجلا قف بو مقعاوي لمودة وحاكا نحيس لمودة وامحي جعيل حريص جعيل وانا حريص واي لكن وحلو له جدا انا اديق اوكالي صاحبتني ما انا قد احس مدة انسان نقيني مدح اللي قد اسلامركي وحان سوكي حيي ولي اذا وقع ما دام انكو جعلهاي وحان كادي وزيركو رفافين كو متر لبا waxaa laga yaabaa qof kaaga wanaagsan inuu jiro
أو قرابة بينهما أما قف قرابيه مقعابين إن أدير كيسواي أما من وزير إلا قفك الباب كفدي وحال كيسا جخل جفوه الباب كان كافورايو كو ماشي حاقايو أو نظيفينايو كو أسيستنياشا waxaa arkaysaa boqolkiiba 70 boqolkiiba 80 wasaaradda waxa ka shaqeeyo dhan hal jufi u wada badan yihiin wasiirka marka la keeno waxa la yiri qabiilka hore u bedelaayo qabiilkiisu hadana ku taxaa dadka waxay la marsiyaha sameeyaan laakiin diin aan xaraam waa ficilkaas waxaana daliil ah wuxuu leeyahay faqad khana allaha wa rasuuluhu wal muslimiin وهذا أوجب عليه وحلو جدا وواجب قفك لما قعابيو إن لغو حلن أما حكتو أما قرابنمو أما صاحبتنمو صاحبتنمو حتى لغو ما حلن كرو مركز كده أي علماء وحدهن وحا واجب تاني لغي جواب البحث عن المستحقين للولايات وحا واجب ضد إن الراديو بحث وحا معنى هذا رادين إلا بالله سيرش وحا نقرأ إنجليش أو صوماليا رادين ولا رادينايا وقت يقاضنيسا يا كو حبون dadka la wareysanaya waa la tashanaya waxa la fiirinaya sifooyinkii wixii oo dhan raadintaasa waxay keenaysaa ilaahay hadana in la tala saarto in cibaado la sameeyo culimadu waxay dhahan qofka inuu laba rakac tukado ninka madaxweynaha ama prime ministerka oo istikhara sameeyo istikhara waxa waaye ilaahu dadan tuhmaya ii door inuu waafaji kan gacantiisa aan dhiig lahayn carabkiisa aan dhiig lahayn ilaa carabka xitaa dhiiga lagu galaayo qalinkiisa aan dhiig lahayn dhaqalkiisa dhagaxta dhiiga lagu galaa mugta dhigiisa xitaa aan dhiig lahayn waayo hadduu uu fariisto uu ka qayb qaado dhegaysi dad la raba in la baabi'iyo waxaasoo dhan mid nadiifa ilaahu i waafaji ilaa adiga waxaa rabtaa ilaahay inuu dowladdaada barakeeyo sooma barakana waxay imaanaysaa ilaahay inuu kaa raali noqdo marka in la raadiyo waaye iyadoo kooban waxaana laga raadinayaa dad 3 sifo leh waa faahfaahinteedana kitaabkeena ugu imaanaysa sifada koowaad waxa waaye amiin qof tuug aan ahayn iyadoo kooban caliim qof cilmi iyo khibrad hooshaas u leh saddexna waxa waaye qawiyun anaa qof karti leh halkan culamadu waxay dhaheen qawiy waxa weeyaan qof xoog leh xoogga waxa loo jeedaa macnaha qof fikirkiisa aad u sareeyo caqli ahaan akhlaaqdiisa aad u sareyso jirkiisa oo qof caafimaad qaba inuu yahay iyo wixii lamid ah ما شاء الله جزاك الله خير واحسن الله اليك وغفر له ذنبك صح والفضيله كنت جبجبدي دردارنك هاي ما حد وجدنا دولة الصوماليه ما حد وجدنا شعب الصومالي سيدي فليتفضل مشكور ومأجور دولة الصوماليه waxaan u jeedinayaa iyo shacabka Soomaaliyeed saddex naseexo koo kitaabkan aan wada barano ana kitaabkan waxaan walaynaa inta jeer aan akhriyay ma xasuusato laahan laakiin hadda jaamacadan ka dhigay kitaabkan jaamacadda islaamka hore waa u dhigay kitaabkan mar walba aad akhriso waxaa kaaga soo baxaya xikmado fara badan cabsi badan oo ku galaysa marka sidaa daraaddeeda kow kitaabkan barashadiisa waa naseexada koowaad waa haddaan kitaabkan baranno anagoo dhan wada liibaanina madaxdan inay barato shacabka inay bartaan waayo haddii madaxda iyo shacabka isku same page aan ahayn ma wada socon karaan waxaana caddeen u ah sayidna cumar markuu madaxweyne ahaa maalinuu istaagay isagoo khudbeenaya wuxuu dhahay asmacuuni wa atiicuuni in maqla amarkaygana qaata iyo adeeca ninaa ka dhex istaagay shacabkii wuxuu yidhi laa nasmacuka walaa nutiicuka mana ku maqlayno mana ku adeecayno hala soo qabto aawi koofi gaduud ma dhihin aawi nabad sugadi ma dhihin wuxuu dhahay niyahow maxaad igu diidan tahay aadan ii maqlaynin oo aadan ii dhegaysanayn aadan ii adeecaynin وعنيه عدالة درام كوجه هستا كور مدحوين مركل لقول عدالة درام كوجه هستا عمره مركز ساوي حجري إيش عدالة درام وحوده هي مدينة وحالة كاني قال قيبين أي أو غير مدينة لأن هالحل إني أقاطان لو قلت لك علي أبان أمر كسبحي قال هالحل لو قلت لك علي الله بقى أنكو أركاوله ذاتك كمسريسي حكا سريسي أو قال غير هذا كوسي لأن دين الإسلام كما رحتنا مركز حل قيبين أي عدالة لو قيبين أي وضحني من لم يقان markaasaa wuxuu yidhi anig kama jawaabo su-aashaas wiilkaygaa ka jawaabay wiilkiisa ag fadhiyey xore aabbahay anaa markhaati ka ah waa nin dheer oo xoog badan marka go'ii la siiyey anna go'aa la isiiyey marka keygii uu ku darsaday marka idan marka laba go' ma haysta soo maaha markaasaa ninkii wuu istaagay wuxuu dhahay alaana hadda nasmacuka waa ku maqlaynaa
ونطيعك وأنا كأطيعنا معنا بحوى عدالة سميس مركب حولت جدا مركب ننكاس علمي يقاني سوما هذو علم أصلا أقوال لهين ما ضحي ما تعالج جرين لهين لكن شعب جاهل ما ضحي ما تعالج جرين كلام نصيحة كوات شعبك هدان هاي يوم ضحي ضبط كتاب كان نمبرن وأنا نصيحة كوات نصيحة لبعض برشة كفاية معه كتاب كمان كان برنا ما دام آيات أحاديث وديهن إن كتاب كان نقلينه ونصيحة لبعض سير رحمة إلهي يريد هنشاء إلهي أن أوحي مد السدحات كتاب كما كان برنه أنت عم برشد خوري حجرنا إنا صحنا خلدات كي دعي خلدات بدنا دعي سامة أنا هدو حال شيء ما إذا عدو حنك آخرين أي ضد هايو لعجنا للسياسة هبل أصول دورنا أنا أقول هبل إنه أقل من ماشي لعجت إقاعتين مركز شيء يعني ترد أنت لا أنا شيء كذا يقوم عصبان nin waxa isoo wacay sheekh ahaan isoo wacay oo magaalada muqdisho isoo wuxuu dhahay $1,000 aan qaatay kooyo konton oo qof soo xulay aan kamid ahaa $1,000 baana cunay uu dhahay ilmahana masruuf ugu dhigay marka dambi ma iga soo gaarayo wuxuu dhahay laluush ahaan la siiyay laba waxaan ogahay ruuxaas meesha aan geynay kuwa ka fiican ka khayr badan ka amaano badan ayaa meesha joogay waxaan dhahay intaasoo dembiga ku wada jirtaa waxay weydiiyey maxaa xal ah waa u sheegay inaad saxdo waxaad khaladay marka hadda waxay dhahdeen mugtaga maxaa nasiixa ay dhahdeen maxaa tala ah tala waxaa ah kitaabkan markaan barano wax alla wixii khaldamo dhan inaan hore ka saxno wuxuu dhahay seen ku saxi karaa waxaan dhahay horta $1,000 celiyaan dhahay wuu naxay marka haddaanat waxaan dhahay kula ururinaa laakiin $1,000 celi sababtoo ah xaqaaga ma ahayn laaluusha ku qaadatay marka celi ruuxu ku sii u celi horta meeshuu doona haka keeno laba u tag ruuxii aad beenbeenta ku doorato waxaa dhahdaa niyahow waxaan ku siinayaa naseexo kursigan iska dhiibda xildhibaan u ahaa wuxuu doortay kursigan iska dhiib adiga uma qalantid hebadaa kaaga fiican dhigiisaa ku dhacaa hadduu kaa diido lacagta aduu asaga ku siiyana u celi haddii cid kale ku siisay oo asaga wakiilkeena u celi ilmahaaga iyo markii waxaad cunteen oo xaaraamta ahaa istikfaar samee marka talaabooyinkaas aan qaado dadka quraanka markay culimada ay fasirayaan yaa ayuha alladina aamanu tuubu ila allahi tawbatan nasuha ilaahi subhanahu wa ta'ala markuu amrayo mu'miniina dadin toobad nasuha waxa loo jeedaa toobad kaamila toobad dhamaystiran la imaada waxa kamid ah xuquuq hadaa qaadatay xuquuqda inaad soo celiso waxa kamid ah hadii khalad aad samayso oo dambi ah ilaahay aan raali kahan aad saxi karto khaladka inaad saxdo marka intaas samee awoodaada kadib ilaahay subxaanahu watacaala dembi dhaaf weydiiso ilahay inuu ku dembi dhaafaa laga yaaba marka qaybta saddexaad aan kusoo gabagabaynaya waxa waaye in kitaabkan barashadiisa ay nagu xambaarto inaan saxno wixii khaladaada aan sameynay haddii wasiiro si khalad meel lagu geeyo wasiirada in laga qaado haddii xildhibaano meelo qalada lagu geeyo xildhibaanada in laga wada xayuubiyo jawooyinkaasi fiiri dadku waa ka caroonayaan qabiiladu waa ka caroonayaan laakiin anaga qabiilada iyo dadka inay caroodaan lama fiirinaya waxaa la fiirinaya ilaahay maxaa uu ilaahay subxaana wataala muxuu ku farxaya ilaahay uu raali ka noqonaya saasay ahayd qaabkii dad kale u fikeri jireen kitaabkana saasuuna baraa inaan u fikirno sida dadkii khayrka badnaa ay u fikeri jireen markii loo fikiro marka waddanka oo dhan khayr ayaa imaanayo nabad waxaa imaanayso oo degdeg ah cadaawadiyaa dhammaanayso qoladaana dhibaysa al-shabaabka dhibka nagu hayso ummaddii iyo ahlu khayrka wada socda ama waa soo toobadkeenaya iyagoo soo socda imaanayaan ama ilaaha naga qabanayo waxaad arkaysaa barwaaqo aan kala go' lahayn raxmad ilaahay aan kala go' lahayn cadaaladiyaa soo laabanayso marka kitaabkan raacitaankiisa ma sahlan ما شاء الله جزاك الله خير واحسن الله اليك وغفر الله ذنبك صاحب الفضيله فضيله الامام الاستاذ الدكتور فضيله الامام حسن جامعي ربي سبحانه وتعالى حكو حفظ ربنا حكو صار ميزانك حسناتك اسبوعا انت نسو غبغبين دونا هدي الله اود سر له ورالك كدغو gabdho fara badan iyo rag fara badan ayaa dhibaataysan oo waxay u cabanayaan ilmahooda oo ay ka walwalayaan kuwana mustaqbalkooda iyo wadajirkooda ayaa halis ku jira kuwana caafimaadkooda ayay dhibaato ka sheeganayaan wadankii Soomaaliyeed dhibaato ayaa ka jirta dawlad la'aan dawlad iska jilicsan ciidan la'aan nidaam la'aan maalin walba qof tukanaya sujuudsan ayaa la dilayaa dhammaantood sayidul kariim duco ayaan ka codsanaynaa falyatafadal mashkuuran wamaajuuran جزاك الله خير شيخ walaalkay إذا وقع ilaha tawfiiqda ku waafajiyay maaragtay sababtoo ah wax walba oo markii la soo gabagabeeyay duca lagu soo khatimaa marka waxaan ku soo khatimayaa sida sunnada ah wal casr bismillahir rahmanir rahim wal casr
إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. waxaa la soo wariyey asxaabta markay kala tegayaan inay sunna u ahayd inay walcasri akhriyaan oo waqtiga ahmiyadiisa ka hadlayso. kolay youtube aan sameeyo imaam xasan jaamici qofkii raadin karo ayay ku jirtaa walcasri oo faahfaahsan. laba khasaaro bini aadamka adduun iyo aakhiro inuu ku dhacayo haddii 4 sifo laga waayo. 4 sifona meeshay ku jirtaa. bini aadamka inuu khasaaro ku jiro haddii 4 sifo laga waayo. 4 meeshay ku jirtaa waa iimaan, waa camal saalix ah haddii qofka laga waayo, waa maaragtay dacwo qofka inuu diinta ka shaqeeyo, iyo midda ugu dambayso sabr inuu qofka uu ku noolaado. marka taas waa horudhaca ducada. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. waxaan ilaahay subxaana watacaala weydiisanayna marka hore ilahay inuu noo dembi dhaafo. ilaahay subxaana watacaala dembigeena sagiira wa kabiira ma aclanna waxaan muujinay wamaa asrarnaa waxaan qarinay dembigeena ilaahay inuu dhaafo. waxaan ilaahay weydiisanaynaa dadka oo dhibaatooyin kala duwan oo walaalkay uu sheegay hadday yihiin dad kala maqan ilaahay nusku keeno. qoys dhiban ama dhexdooda dhib ka taagan ilaahu dhibka iyo khilaafaadka ilaahu ka qaad. dhexdooda qoyaan, raxmad, kalgacayl, wada socosho, midnimo ilaahu yeel. hadday gabar guurdoon tahay ilaahu waxaad u sahashaa wiil mu'min, qaanid, saalix, taa'ib, caabid, daakir, taqiy min awliyaa ilaahay ka mid ah. haddii oo wiil uu yahay oo gabar uu raadinayo uu guursado ilaahu waxaan ku weydiinaynaa, aan kaa codsanaynaa, aan ku weydiisanaynaa in qofkaasi aad ku ilhaamiso gabar muslimad ah, mu'mina, qaanita, taa'iba, caabida, saalixa, daakira, aa'iba, taqiya min awliyaa ilaahi. gabar noocaas oo kale ilaahay subxana watacaala inuu wiilkaas uu siiyo. haddii dad sharci ka maqan ayna dhegaysanayaan ama hanala joogeen oo sharci doon ah, waddanku doona ha aada adduunka, maadaama dadkii ay beelaha yihiin ilaahu sharcigooda u sahlo, ilaahu u soo dedeji. haddii sharcigu kala dhiman yahay ilaahu dhamaystir. haddii culays uu jiro oo xagga sharciga ka saaran ilaahu ka qaad. waa u ducaynaynaa dad badan oo maanta oo dad qoysaas oo kale maanta aad u dhiban aan kaalmeynaya xafiiskeenna oo sharci yaqaanada ah. dadkaas qoyskaas iyo wixii lamid oo dhan waxaan ilaahay u weydiinaya ilaahu inuu kurbada ka qaado. ilaahu kurbada ka qaad. muslim kasta ilaahu kurba haysta kurbada ka qaad. dadkana deyman ilaahu deynta naga gud. ilaahu deynta naga gud. ilaahu deynta naga gud. masaajidaha deyman ilaahu deynta ka gud. masaajidaha dhismaha ku socdo ilaahu lacag ay ku dhisaan ay ku horumariyaan ilaahu u sahal. wiilasheeni garan haddaan u ducayno oo wadamada qurbaha ku nool iyo waddanka soomaaliya xataa hadda iyo wadamadii carabta waxaa laga soo sheegay meel kastoo loo cararo waxaa laga soo sheegayaa duraagiskii, akhlaaq daradii iyo wixii oo dhan. marka kulli dhallinyaradoo dhan iyo caruurteena u ducaynaynaa ilaahu noo ilaali, ilaahu noo xifdi, ilaahu indhahooda xifdi, ilaahu maqalkooda xifdi, ilaahu carabkooda xifdi, ilaahu maskaxdooda xifdi, ilaahu qalbigooda nuurul iimaan ka buuxi, ilaahu gacmahooda xifdi, ilaahu xubnahooda qaaska xifdi, ilaahu cagahooda xifdi, ilaahu meesha u socdaan khayr ka yeel, ilaahu saaxiibo khayr badan oo mu'miniin ah oo saalixiin iyo saalixaad isugu jiro. hadday gabdho yihiinna gabdho saalixaad ah oo adqiyaa ilaahu subxaanahu watacaala waafaji. hadday wiilal yihiinna sidoo kale wiilal saalixiin iyo adqiyaa ilaahu. وتهي أن شيخي وإيجو أي بارك الله فيك. سيدي ما شاء الله سوى أحسن. ورنا مثلنا إله خير أردنا وضسي. اللهم آمين. إله سبحانه وتعالى شر أردنا إله نجح حجاب. آمين. مخلوق كستو أبورت أو شر وطه أو واحد دباية إله إبكيس أذان كاما جنقلني. مخلوق كست أبورت أو خير ولاء أو خير أولى له خير كيس نسوءاتي ماشي أن كنا الله كوي خربها جو له خربها سي جنة إله ويل وح على وحي دين تودر داوعيس أخلاقه إله كإلالي هدي كوي جو ولا ودنك يدولك يدولدي وأودعين هنا دولة شرع حكومته بقولك يبقى إله كيل واحد لباية الشباب خوارجته
iyo wax la mid ah iyo waxa qarsoon aanan ogeyn ee hubaysan ee qaraxyada dhibka dilka waxaas oo dhan ilaahu ka qabo dowladdan wax khayr bay bilowday ilaahu xooji oo khayrkaasi kuwii dhamaystira ilaahu ka yeel wixii khalad ay samaysana ilaahu ka cafi wixii sax ah ilaahu ku hagaaji oo khayr ah oo raali ka tahay ilaahu canaasirta ku jirta oo dowladda ka socon la oo kana mid ah ilaahu hadduu hanuun u dambeeyo ilaahu soo hanuuni hadduusan hanuun u dambeyn ilaahu ka saar ilaahu subxaana wa tacaala dowlad khayr badan oo maslaxadda diinta maslaxadda ummadda maslaxadda dalka maslaxadda dadka ka shaqaysa ilaahu ka yeel ilaahu subxaana wa tacaala dhammaanteen oo dhan khayrna waafaji سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صاحب الفضيلة أنت نوجد عيسى كبدا بالله قصير ربي سبحانه وتعالى. آمين. ورب أسترها كادجو سيدا أبو الأنبياء والمرسلين ربي سبحانه وتعالى. أديك قوس كاجبها أوبد بادي سيدا أوبد بادي نبي الله موسى عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى هكوا عسومه وبيجا كوثر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. برنامج كذي intaas ayuu caawa loogu leeyahay haddii allah wada salaanaga hala ka dhigo waa arbacada dambe iyo fadiilatu sheekh al-ustaad imaam xasan jaamici sayidi salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا بارك الله فيك. وإياك.